wararka ugu waaweyn saakay iyo suuqa kaliibsigu ciyaartooga arrimayaab la ayaa soo baxaya oo ku aadan suuqa Chelsea ayaa weerar xoogan wada halka sidoo kale Liverpool ayanu saakay iyanu aad xawli ugu socoto Liverpool iyo Chelsea baana suuqa kaliibsigu ciyaartooga ku tartami doona waliba waxyaabaha saaki aadka u xoogan waxa way tahay Madrid Chelsea Liverpool ayaa meelaha aad isha lagu hayo suuqa kaliibsigu ciyaartooga iyaga ayaa saaki aad inta badan ugu badan oo maxaa yeelay isku wada xirxirayeen haddaba Liverpool ayaa si weyn u doonaysa goolhayaha u ciyaara kooxda Roma ee Alisson laakiin Chelsea ayaa iyana doonaysa inay ka dulqaado Chelsea waxa ka tagaya goolhayahooda Courtois Check ayaa isna dib ugu soo noqon karaya kooxda Chelsea waxyaabaha ka oo dhan ayaa isku xirxiran oo wararka saakay suuqa ugu muhiimsan haddaba Berik Check ayaa bixitaanka Courtois waxa soo baxaya war sheegaya intii bad Courtois heshiis 35 milyan ay Chelsea kala gaartay Real Madrid oo Real Madrid heshiis 35 milyan bay kula gaartay ninka kan ee Thibaut Courtois waxaana suurtagal ah Courtois in xilli ciyaareedka kan uu ka ciyaari doono horyaalka Spain oo uu ciyaari doono kooxda Real Madrid marka heshiis waxa jira 35 milyan oo Courtois ugu wareegayo kooxdan la yiraahdo Madrid marka heshiisku waa dhacay oo waa la isku afgartay laakiin heshiiskan ma dhameystirmi doono ilaa Chelsea ay ka hesho bedelka goolhaya Courtois heshiiskan wuxuu xiran yahay markii Chelsea ay hesho bedelka Courtois ay heli karayaan Real Madridna Courtois marka laakiin 35 milyan ayaa jira oo ay kala sixdeen Chelsea iyo Real Madrid bal heshiisku wuxuu ku xiran yahay waa inay Chelsea goolhaya hesho waynaad ku duceysataan Chelsea inay hesho goolhayo haddii aad rabtaan Courtois Real Madridow heshiiska ma dhici doono iyadoo aan Chelsea goolhayo helin sida daraadid hadiiba Courtois Real Madrid heshiis la sii gaartay oo heshiiskan uu ku xiran yahay in Chelsea ay goolhayo hesho suurtagalnimo waxa jirta warar sheegaya in Courtois bedelkiisa uu noqon doono xitaa goolhayo Berik Check waxay leeyihiin Chelsea laba dhinac bay isku dayaysaa haddii Alisson ay wiido waxay doonayaan inay Checkna soo ceshtaan marka warar ayaa sheegaya Berik Check oo 36 jir inuu dib ugu soo noqdo kooxda Chelsea macquul weyn waa nin da'diisu ay aad u weyn tahay waxaana ninka kan uu qayb ka ah kooxda Arsenal laakiin Arsenal ayaa kaysatay goolhayo Bernardo Leno oo 19 milyan ay ka soo bixiyeen taa waxay ka dhigan tahay marka Check inaanu boos helin dhinaca kale goolhayaha hadda Chelsea Courtois ayaa isagu u muuqda mid faaruujin doona kooxdan isagoo ku dhow inuu ku biiro Real Madrid wargeyska dalka Spain gaar ahaan RMC Sport ayaana hore u shaaciyeen goolhayaha reer Belgium uu siixi doono Los Blancos kadib markuu ka soo laabto fasxiisa sidoo kale waxa jira warar sheegaya Blues inay doonayso goolhayaha Leicester City ninka lagu magacaabo Kasper Schmeichel xitaa way doonayaan kaas oo ay u arkaan dooqa u furan Kasper ayaa qaab ciyaareed fiican ku soo bandhigay tartanka koobka adduunka taas ayaana ah mid sare u qaadi karta lacagaha lagu iibsan karayo marka Chelsea hadii ay xitaa Alisson ku wareeraan Checkna hadii ay ka labalayaan qaadashadiisa inuu nin qaaroow yahay ugu yaraan ayagu kama dhigi doonaan Check inuu goolhayo kuwaad kama dhigi doonaan ugu yaraan hadii tartanka looga adkaado Alisson oo Liverpool ay ku adkaato waxay soo qaadan doonaan goolhayaha kale ee Leicester Schmeichel ka oo wacdaro way ka dhigay ciyaaraha koobka adduunka si kastaba haatee waxa hubaala in hadii Chelsea ay lumisay goolhayaheeda Courtois ay dhibaato weyn ku noqon doonto hadii aanu helin goolhayo ninka uu qalmo bedeli kara halka waa Chelsea doonista ciyaartooyga bedelka u noqon kara Courtois oo Real Madrid ku dhow waliba heshiis ay la gaartay laba nin bayna ku bedelan karayaan waa Berik Check sidoo kale waxay ku bedelan karayaan ninka lagu magacaabo waa ninka la yiraahdo Schmeichel oo Leicester u ciyaara iyo ninka kale waa ninka la yiraahdo Alisson Liverpool ayaa qarka u saaran inay qaadato waliba lacago 70 milyan ayana Sky Sport Italia soo warinaysa Liverpool inay ku qaadan rabto goolhayaha Jalaros ee Roma Alisson laakiin Roma waxay ku doonaysaa 80 milyan hadii Liverpool 10 milyan aysan ku darin ay Roma doonayso oo ay xoogaa isdaahdaahiso Chelsea ayaa ka dulqaadi doonta ciyaartooyga kan Alisson wararka saaka ka soo baxay dalka Talyaaniga marka xalay oo dhan Liverpool ayaa heshiiskan ku dhaweyd waliba iyaga ayaa ugu dhow lacag 70 milyan ay ku qaataan ninka kan laakiin heshiiskan inta Roma ay ku rabto iyo inta Liverpool ay ku rabto waxa u dhaxeeya 10 milyan Roma ay ku rabto 80 milyan kuwan oo ku rabto 70 milyan hadii Liverpool ay ku dhaqso weydo Roma sida ay rabtay u yeeri weydo Chelsea ayaa suurtagal sidii City ay ugu dulqaaday Jorginho in kana ay ugu dulqaato kooxda kubadda cagta ee Liverpool marka heshiisyo isku xiran oo dhanka goolhayaasha ayaa socda kaas oo ay wada doonayaan Liverpool Real Madrid iyo Chelsea saddexda dhinac waxa jira heshiisyo dhanka goolhayo malaha iyagu goolhayaasha maluhu faqri ka yihiin oo inkastoo Real Madrid ay naafas haysato haddana waxay u baahan tahay isbedel cusub oo Courtois way raadinayaan
kartuwa ma heli karaan iyadoo Chelsea ay helin gool haye fiican waxay raadinayaan saddexda gool haye Alisson min Cheik min ninka la yiraahdo Martial Liverpool gool haye ku xumaadayo ninka la yiraahdo Karius hatta hadii fursad la siiyay isagoo frustration dadka ku riday ama frustration ku riday koobka Champions League ee goolal badan ku gamo iska noqday oo goolashiiba deendeynayay ayaa haddana kulamadii saaxiibtinimada la furay haddana waxa uu la safayo fursadu la siiyay waxa la arkay isagoo goolashu ka hoos fakanayso waxa la yiri ninka laba cimaamada kale goolayo naga raadiya waa sababtay Alisson u doonteen heshiis saddex gisla ayaa la filayaa marka inuu dhaco dhowrka saacadood ee soo aadan laakiin baritanka ugu weyn ama tartanka ugu weyn wuxuu dhaxyaala Liverpool iyo Chelsea oo isku haya gool hayaha kan ee Alisson hadii Liverpool ay ku dhaqsan weysay heshiiskan Chelsea baa ka dulqaadi doonta Alisson kale ugu weyn saaka ciyaaraha waxa kamid ah Chelsea ayaa heshiis la gaartay baa la leeyahay ciyaartooyga CSKA Moscow ninka lagu magacaabo Alexandro Golovin waa ninka koobka adduunka ugu qayb galay sanadkan Ruushka waa wiilkii qatarta badnaa kadib markii uu iska diiday wiilka inuu ku biiro kooxda Monaco wiilka wuxuu rajaynayaa inuu ku biiro kooxda Chelsea ayaa ninka kan aad u doonaysayo Moscow mataqaana ninka uu ciyaar aad u xiiseynaysa waa Alexandro Golovin ninkan ayay Monaco doonaysay laakiin ninkan ayaa raba in uu qabto kooxda Chelsea Blues ayaa ninkan kula tartamaysa iyagu ku dhigo kooxda Juventus oo iyaguna xitaa aad u xiiseynayso wiilkan qadka dhexe ee weerarka Juventus wax urus badna Golovin ayaa Golovin baa 7 gool dhaliyay 38 ciyaarood oo uu ciyaaray CSKA Moscow oo sanadkii hore ku dhameysatay booska labaad ee horyaalka dalka Ruushia marka sida daraadid Zari ayaa doonaya wiilkan 22 jirka ah waxaana loo maleynayaa in ninka kan heshiiskiisu wax laga ay ka dhameynayso marka Golovin waxa loo badinaya inuu Chelsea ku biiro maadaama isku diiday kooxda ka dhisan Faransiiska ee Monaco Chelsea xitaa warar ayaa sheegay inuu ka tagi doono ciyaartoygooda Gary ayaa mustaqbalkiisa Chelsea go'aan ka gaaraya waxaana Evening Standard ay soo warinaysaa saakay in 32 jirka kan oo sanadkii hore bandhig fiican waayay laga yaabo sanadkan in kooxda isaga baxo maadaama kooxdu ku soo biiri doono ciyaartooyga lagu magacaabo Daniel Rugani inuu kooxda ku soo biiri doono waliba Rugani maanta ayaa la filay heshiiskiisa la dhameeyo Rugani waa difaac u ciyaar Juventus ninka ay Chelsea ku soo biiri raba sida daraadeed ninka 32 jirka Gary Cahill ayaa kooxda ka bixi kara Gary Cahill ayaa lagu wadaa in wada hadal la qaato macalinkiisa cusub ee Mauricio Sarri waxaana uu kala hadli doonaa mustaqbalkiisa dhanka kale warar kale ugu weyn saaka Talyaaniga waxa kamid ah Marcelo ayaa si lama filaan shal u tagay xerada tababarka Real Madrid waxaana arinkaas ay keentay argagax weyn Marcelo wuxuu fursad u haystay inta ka dhiman xilli ciyaareed inta ka dhiman maalmo yar oo fursad wuxuu haystay ku soo nasan karo maadaama uu ka baduu ku daalay ciyaartooyga isaga oo kala fasax baa la siiyay inuu soo nasto laakiin Marcelo waxa la arkaa soo xiimay tababarka yimaadi waxa uu si dhaqsi kuna ula qaatay tababaraha cusub ee Real Madrid waxaana uu kala hadlay warar ku leeyihiin inuu rabo isna inuu Ronaldo raaco oo Juventus uu raaco marka Marcelo isna wuxuu codsaday baa leeyahay sida wararka ay sheegayaan oo tababaraha cusub uu kala hadlay mustaqbalkiisa wuxuu codsanayaa in la fasaxo waxa suurtagal sanadkan Chelsea in laga qaato Hazard oo Real Madrid ay aad u doonayso ninka la yiraahdo Aiden laakiin heshiiskan hal siyaabood kuma dhici karo sababta uu heshiiskan ku dhici karin oo Real Madrid aysan u qaadi karin Hazard u qaadan karin waxay tahay sharcigii suuqa iibsiga Premier League waxa laga bedelay haddaad ilowdo wadan kugu celinaya maanta sanadkii horena waan ku sheegay Premier League sanadkan wuxuu xirmayaa iyadoo horyaalka aan la baasin sanadii hore suuqa Premier League uu furnaan jiray ilaa horyaalka Premier League laga ciyaaray 3 kulan uu furnaan jiray 3 kulan marka la ciyaar kadib uu furnaan jiray waxaana suurtagal ahayd nin hadda kooxdan u ciyaar inuu kooxdan u ciyaaro laakiin sharcigii hore Premier League waa la bedelay sharcigaas ayaana Chelsea u diidaya in Hazard ay siiyaan kooxda kubadda cagta Real Madrid sharciga cusub Premier League wuxuu yahay suuqa kala iibsiga Premier League in la xiri doono 48 saac ka hor 48 saac ka hor inta aanu bilaabin horyaalka Premier League taas waxay ka dhigan tahay marka Chelsea ma heli doonto fursad ay kula soo wareegto isagu bedelkiisa marka taas waxay ka dhigaysaa Chelsea inaysan siinin Real Madrid ayna Hazard Premier League ayaan awoodin marka in ciyaaryahanno cusub uu soo qaato marka horyaalka uu furmi doono 48 saac ka hor intuusan horyaalka furmin 48 saac ka hor suuqa Premier League waa xirmaya sida daraaddeed Chelsea hadii laga qaato Hazard ma heli doonto fursad ay isagu bedelkiisa ku heli karaan marka Chelsea uma badna ninka in fasaxi karaan baa la leeyahay laakiin suuqyada kale ee qaaradda Yurub ayaa si furnaan doona suuqa Serie A suuqa maxal raadayay La Ligue suuqa maxal raadayay Germany waxa uu furnaanayay Faransiis
laakiin sharciga Premier League sanadkan wax badan ayuu bedelayo sharcigan wuxuu yahay horyaalka markuu 48 saac ka dhiman yahay furmitaankiisu tusaale ahaan horyaalka wuxuu furmi doonaa maalin sabti ah suuq waxa la xirayaa khamiis ayaa la xirayaa khamiis ayaa suuq kale isugu ciyaartooyga Ingiriis uu ka yahay haddaba marka nin yahow waxa isla ayaanta dadka maxaa loo kala gurguranaya loo kala bobsiinaya isbubis ayaanta suuq Ingiriiska ma dareemaysido wala isdaldalanaya bishan hadda timisdeed maraysa bishan hadday dhamaato bishan hadday dhamaato 9 Agosto suuq waa xiran yahay 9 Agosto suuq waa xiran yahay hadda meel ku qoro 9 Agosto suuq waa xiran yahay laba maalin kadibna marka suuqa la xiro Premier League furmaya 48 saac ka hor intuusan Premier League bilaaban suuqa kow ayaa la siinaya nin walba hadda wax qaado ha hey wala jiri doono dadka qaar meelaha indhaha taagan shanta koox baan la hadlaya Premier League meelaha warwareegaya biri kan dalbada maalin kale biri kale kan dalbada wax la dalbada waxna la qaadan hay angooy albaabkii xira ka dhici doonta wallahi waa la diyaaba okayba haddaba suuqii sharciga baa laga bedelay Premier League haddaba la socod ilowday wararka kale ciyaaraha weyn waxa kamid ah AC Milan ayaa inuu suurtagal ay tahay inay macallin Gattuso ku badasho macallinka hadda la soo raacdeeyay ee Antonio Conte Rossoneri ayaa macallin xumo ay weerarisay inkastoo Gattuso xilli ciyaareedku la dadaalay haddana wali kuma filmida Milan ayaa doonaysa macallinkii hore ee Chelsea iyo Juventus inay soo qaadato sida ay saaka soo warinayso Sport Medicine horay ayaana Conte Milan la xiriirin jiray intuusan tababar xulka Talyaaniga noqon Antonio Conte Milan ayaa doonay jirtay marka Milan waxay isleedahay fursad baa idin hortaalo oo ninkan ugu faa'iideysan kartaan bogoga wargeysida Talyaaniga ee saakay oo arbacada ayaanu eegaynaa markaan oo Pogba ayay suurtagal tahay inuu dib ugu noqdo kooxdiisii hore ee Juventus bogo hore ee wargeyska Corriere dello Sport ayaa waxa saakay lagu qoray qodobo badan oo suuqa la isugu ciyaartooga waxaana ku jira Carlo Ancelotti oo telefoon kula hadlaya Angel Di Maria oo dhahaya waryaayga imaw Angel boy la xirnaya Napoli oo Di Maria qaadata ayaa laga yaabaa kooxda la yiraahdo Napoli oo Ancelotti oo telefoon kula hadlaya saaka wargeyska Corriere dello Sport lagu soo qoray Angel la hadlaya Higuain oo isagu Chelsea ku beeraya si Alvaro Morata isna ugu beeray AC Milan wararka saaka ugu weyn suuqa la isugu ciyaartooga Higuain ayaa isna suurtagal laga dhigaya inuu Chelsea ku beero Moratana wuxuu ku beeri doonaa kooxda AC Milan sida saaka wargeyska Corriere uu qorayo gool haya Alisson oo isna Liverpool ku sii dhawaanaya iyo waliba saameynta Ronaldo ee saamiga suuqyada kooxda Juventus oo sii kordhaya macni markuu Ronaldo ku beeri iyana kooxda la yiraahdo Juventus waxa sii kordhay saamigii suuqa ee kooxda cajuusta daba aan ku bilownay qoraalka kan Napoli waxay ku duceysanaysaa Di Maria Ancelotti wuu isku taagay wuxuuna telefoon kula xiriiray hibada PSG waa la wareegista riyo ah in Di Maria ay qaadato kooxda Napoli qoraalka boga hore ayaa markale looga hadlay arinka Higuain waxa uu Morata u dirayaa AC Milan inuu Higuain qabto kooxda Chelsea Morata ayay fursad u siinaysaa inuu isna Milan ku biiro ayaa la leeyahay Babito waxa uu ku sii jeedaa Chelsea taas oo gool dhaliyaha reer Spain sii day karta saameynta Ronaldo iyana bog hore looga hadlay saakay saamiga Ronaldo Juventus ka sii qanisan midii hore noqotay waxaana qoraalka lagu sharaxay saamiyada Bianconeri haddaba waxay dhowr maalmood sar u kaceen boqolkiiba 30 ay kor u kaceen Juventus dhaqaalihii ay heli jirtay kor isku sii shareeray maxay waxay iibsadeen konta gool dhaliyo 5 Ballon d'Or la heshiiska qarnigan ugu weynaa Cristiano Ronaldo qayb kale ayaa looga hadlay wargeyska saakay gool hayaha Rome Alisson waxa uu u socdaa Liverpool waxay ku dalbatay 70 milyan oo euro Rome waxay sugaysaa dalab ay sameeyso Chelsea yani Rome waxay fiirnaysaa miisaanka lacagta ay fiirnaysaa Liverpool hadday 70 meelaha la marayso haddii Chelsea ay la timaado 90 Alisson Chelsea uu noqonayaa marka Rome waxay rabtaa inay ka faa'iideysto labada koox Ingiriiska marka waxa wargeysku leeyahay Alisson wuu socdaa Liverpool 70 milyan bay ku dalbatay Rome waxay sugaysaa dalabka Chelsea wakiilka goolhayu waxa maanta laga filayaa wakiilku goolhaya waxa maanta la filayaa oo laga filayaa caasimada Rome inuu heshiiska ku dhameeyo ayaa la rajeenayaa marka Chelsea iyo ninkanna waxay isku dagaalsan yihiin ninkan Alisson bogo hore ee wargeyska Tutto Sportsna saakay wax badan ayaa lagu qoray
Tuta Sport ayaa bogiisa hore lagu soo bandhigay Cristiano Ronaldo iyo Paul Pogba waxaana sharaxaad looga bixiyay qaabka ku biirista Cristiano Ronaldo ee Juventus iyo xidiga reer Faransa ee Pogba saameynta oo ay ugu yeelatay isagoo doonay inuu Juventus ku soo laabto hadii Ronaldo ay qaateen Pogba saameyn ayay ku yeelatay in uu ku soo biiro kooxda kubadda cagta ee Juventus inuu ku soo laabto maadaama Ronaldo ay qaateen imaanshihi Ronaldo Juventus Pogba way soo jiidatay isaguna waxaana qoraalka lagu yiri saameynta suuqa kala iibsiga ee Ronaldo Pogba wuxuu u wacay Juve waxa jooga CR championka adduunku waxa uu doonayaa inuu dib ugu soo laabto Turin marka sidaas daraadeed Pogba isaga Juventus waa cibaal leeyahay oo haduu Ronaldo tagay wuxuu isleeyahay meesha haday cimaamadan tahay bal meesha tag Matuidi bana maalin dhaweed ugu baaqay inuu halka yimaado marka wargeysku wuxuu saakin leeyahay Pogba wuxuu wacay CR ayaa halkaas joogo wuxuu dareemayaa Juventus inay noqon doonto championka adduunka markan waxa kale oo baga hore ee Tuta Sport looga hadlay riyada mashruuca kooxda Napoli ee Carlo Ancelotti uu diyaarinayo waxaana lagu yiri jamaahirta Napoli waxay ku riyoonayaan Cavani isla mar ahaantana waxa salaanta saaran in iyanu la soo qaado Benzema iyo Di Maria Napoli waxay noqon doontaa markan koox shidan Ancelotti bana shiri doona marka hore Cavani baa imaan doona Benzema ayaa laga soo qaadi doona Madrid sidoo kale Di Maria ayaa biishi ka imaan doona marka kooxdu waxay noqon doontaa koox aad u dhisan waxa kale qoraalka kooban looga hadlay dalabka ay kooxda Liverpool ka gudbisay goolhayaha Rome ee Alisson waxaana qoraalka lagu yiri Reds waxay 70 milyan oo euro ku dalbatay Alisson Juventusna waxay aad u xiiseynaysaa in Daniel Rugani ay maanta heshiiskiisa dhameyso oo uu Chelsea Rugani ku biiro sidoo kale Higuain ayaa laga yaabaa isla maanta in heshiiskiisa Chelsea ay dhameyso Chelsea maanta waxay filaysaa inay ku dhawaaqdo marka Rugani maanta Arbaca lagu dhawaaqi doona waa difaaca Juventus Chelsea baa qaadan doonta Higuain xitaa arrinkiisu in la dhameeyo ayaa suurtagal oo Chelsea sana uu qabto waxa kale oo in ciyaaraha weyn Leonardo Bonucci kabtanka AC Milan wuxuu Milan ka codsaday in la fasaxo Bonucci ayaa doonay inuu Milan ka tago waxaana doonaya Manchester United Man City iyo Chelsea waliba Manchester baa doonayso marka Bonucci wuxuu ka codsaday Milan in la fasaxo way wararka leeyihiin